Asalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada youtube channelkeena Go Technology. maanta waxaan baran doonaa course wordpress ah cashirkiisa ugu horeeya ayaan soo bandhigi doonaa waxaan usoo gudbin doonaa coursekan bilow ilaa dhammaad waxaan rajeynaa inaad ka faa'iidaysan doonto oo aad ka mid noqon doonto saaxiibada nagu xiran sidoo kale cashirkeena ugu horeeya maanta waxaan ku baran doonaa maxaa la yidhahdaa wordpress ayaa soo saaray goorma ayaa la soo saaray wordpress is an open source content management system which allows the user to build dynamic websites and blogs. Waa content management system u ogolaanaya qofka userka ah inuu dhiso dynamic website dynamic ah. Dynamic waxaa laga wadaa yacni waa wax laga bedeli karo. Dynamic waxaa bilcagsi ku ah wax loo yaqaano static yacni waa wax aan waxba laga bedeli karin. Dynamicna waa shay wax laga bedeli karo. WordPress is the most popular blogging system on the web. Waa midka ugu caansan and allows updating. Wuxuu ku sababta maxaa marka yacni inuu noqdo midka ugu popularsan maxaa waaye wuxuu ku ogolaanayaa inaad daatada update gareyso, customizing and managing the website. Yacni inaad daatada update ku sameyso, inaad la macaamisho, sidoo kale inaad maamusho website-ka from its back end. yacni back endigiisa website-ka waa laba qaybood yacni front endiga iyo back endigiisa inaad maamusho content management system and components iyo waxyaalaha uu ka kooban yahay inaad maamusho yacni ku fududeynaya yacni waa wax waxa ka bedeli karta waa dynamic waxyaalaha aadka u caanka ugu yahay wordpresska ka mid ah. Okay, what is content management system? Marka CMS yani content management system maxaa la yiraahdaa? Content management system is a software which stores all the data. Waa software kaydinaya dhammaan datada such as yani sida qoraalada, photoska, musica, documentska etc. waxyaalaha kaydina waxa loo yaqaana content management system. It's made available on your website. يعني content management system waxaa lagu sheegayaa inuu website-kaaga ready ku yahay. It helps editing yani waxay ka caawinaysaa in editing inaad edit ku sameyso, publishing and modifying the content of the website yani inaad wax ka bedesho contentiga ama gudaha website-ka inaad wax ka bedesho ay ku fududeynaysaa ay ka caawinaysaa. taas waxaa loo yaqaanaa content management system ama wax loo soo gaabsada CMS. Okay, waxaan arki doonaa when released goorma ayaa la soo daayay, goorma ayaa la soo saaray waa macnaha WordPress goorma ayaa la soo saaray. WordPress was initially released. WordPress waxaa la soo saaray on 27 May. WordPress waxaa la soo saaray 27 bishii May 2003 yaa soo saaray Mullenweg and Mike Little. WordPress was announced on open source. WordPress was announced. WordPress yani waxaa lagu soo dhawaaqay. WordPress waxaa la shaaciyay open source ahaan October 2009. October 2009 ayaa la shaaciyay WordPress yani uu yahay open source. Coursekan waxaan rajeynaa inaad fahantay yani maxaa la yiraahdaa WordPress goorma ayaa la soo saaray, yaa soo saaray, xiriirada soo saaray, goorma ayaa loo aqoonsaday yani open source. waxyaalaha kale oon baran doona waxaa kamid ah yani inaan dhisno website oo casri ah sida news website oo news ah, blog website, e-commerce website oo e-commerce yani sida ganacsiga, sida business websites oo dhammaan WordPress aan ku dhisi doonaa bilow ilaa dhammaad. inaan yani sameyno local host website intaanan online aanan saarin ama yani aanan sameynin server side yani intaanan hawada gelin waxaan sameyn doonaa inaan local hostaha PHP my admin-ka ama Zambaha inaan soo degsano yani local hostaha inaan ku dhisno bilow ilaa dhammaad. yani local hostiga website waxaan dhisi doonaa offline ah oo professional ah. markaas kadib ayaan waxaan sameyn doonaa website-kii professionalka ahaa oo offline-ka ahaa oo aan dhisnay inaan ku sameyno online yani inaan online u bedelno. marka si offline loogu dhisana waa baran doonaa. sidoo kale waxaan baran doonaa sida online loogu dhiso. waxaan rajeynayaa inaa yani ka faa'iidaysan doonto. marka waxaan sameyn doonaa muuqaalo yani kooban oo soo koobaa muhiimadii wax dhan ayaan kusoo gudbin doonaa. marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan.
sidoo kale aad ka mid noqon doontaan saaxiibadeen nagu xirnay halkan ku saaxiibnay. Waxaan rajeynaa sidoo kale in aan noqon doono dadka faa'iideysta time is very important. inaad maanta xirfad barata waxay kaa caawinaysaa yacni mustaqbalkaaga inaad wax weyn ka bedeshaa. waxaan rajeynaa inaad ka faa'iideysan doontaan. Assalaamu calaykum.